السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا أصحابي وحرنا وحرنا اسكو فايدينه. يعني حسا بيجك waxaan soo post gareeyay post ka hadlayay gabar iyo abtigeeda markii uu horeysay kulmayay kulankoodana rafaad badan ay ka martay gabadha. Waxaa laga yaabaa in rafaadkaas hore u soo martay ama hadda ay ku dhiman tahay. Si aysan taas u dhicin marka waxaad isticmaashaa live location adigoo isticmaala WhatsApp. Waxa ku tusaaya marka adiga saa u dir lahayd ama marka lagu soo diro aad u isticmaali lahayd. WhatsApp-ka qofka marka gudaha u soo gashid waxaa ku dhufanaysaa calaamadda isbidaarta meesha ku tilmaamayso. Waxaa ku soo bixayso shaashadan waxaa ka dooranaysaa location-ka. Markaa ku dhufatid waxaa ku soo bixayso shaashadan continuous leeda. Shaashadan kala ku soo bixayso location-ka furanaysaa kadib shaashadan kala ku soo bixayso ayadana. Labadan option ku soo bixayso midka koowaad waa inaad si toos ah ula wadaagtid location-ka goobta aad joogtid. Midka labaadna waa inaad la wadaagtid goobaha kaaga dhow restaurant-yada hoteelada iyo meelaha la midka. Waxaan dooranaynaa inaan si toos ula wadaagno goobta aad joogno. Shaashadan noo soo bixayso continuous leena. Shaashadan kala noo soo bixayso waxaa ka dooranaynaa waqtiga la wadaagayno qofka location-ka 15 daqiiqo 1 saac iyo 8 saac. Saddexdaas option kala dooranayna. Hoosna comment u raacinayna tusaale location-kan isticmaal oo kale. Send dhehena qaybta labaad marka soo gudbeenaa qofka marka loo soo dirso oo isticmaal lahay. Markii lagu soo diro oo ku dhufanaysaa marka ku dhufatid waxa ku soo bixaysa shaashadan oo aad ka arki karto halka qofka uu ku sugan yahay. Filaarta kore waa halka qofka uu ku sugan yahay annaada location-ka la wadaagaysidna hoos ku dhufo. Si aan u isticmaalno Google location waxaa click siiyeenaa sawirka dushiisa waxaana soo bixaysa inta mitir oo noo jiro qofkaas. Waxaana soo bixaysa shaashadan waxaan leenahay get direction. waxaana soo bixay shaashadan kaleeto wuxuu noo raadinayaa Google dad u aboon ka bixi kara. Shaashadan kale noo soo bixaysa safarka noo bilaabaa leenahay start yani. Halkan waxaan ku arki karnaa halka qofku ku sugan yahay halka aniga ku suganahay iyo sidoo kale wadooyinka qofka soo mari karno. Hoos imaw recent dheh. Safarku waa bilaawday. Hoos waxaan ku arki karnaa waqtiga aan meeshaas ku tagi karno. Ugu dambeyn markaad qofka kulantaan WhatsApp-ka dib ugu soo laabo stop sharing dheh si uusan dhib kaaga imaanin.